16 saacadood ee ugu dambeeyay ayay dhacdadan oo ah mid aad u argagax badan qabsatay baraha ay ku xiriiraan bulshadu. Allah u naxariistay marxuumad Xamdi Maxamed Faarax oo ka mid ahayd gabdhaha daayirta ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa kufsi loogu geystay mid ka mid ah guryaha ku yaala degmada Waaberiga gobolka Banaadir, waxaana laga soo tuuray intaasi wixii ka dambeeyay dabaq ku yaala isla degmada. dhacdadan oo noqotay mid aad u argagax badan isla markaana markiiba qabsatay baraha bulshada ayaa waxa soo baxay warar kala duwan oo ka soo baxaya. Allah u naxariistay marxuumad Xamdi ayaa waxa da'deeda lagu qiyaasay 20 ilaa 19 jir, waxaana gabadhani ay ka mid ahayd ardaydii sanadkan ka qalin jabiyay dugsiyada sare ee dalka isla markaana aan nasiibka u yeelan inay sii wadato hayaankeeda waxbarashada. qaar ka mid ah ehelada gabadhan oo la hadlay warfidiyaanka gudaha ayaa dalbaday in cadaaladda la hor keeno dadkii geystay falkan foosho xun, waxayna warbaahinta u sheegeen in la xaqiijiyay kufsiga loo geystay gabadha ka hor inta aan dabaqa laga soo tuureen. falalka noocan kufsiga ku saleysan ee loo geysanayo gabdhaha daayirta ayaa ku soo badanaya muddooyinkii ugu dambeeyay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. dhacdadan ayaana ah midii ugu dambeysay ee laga hadalhayo baraha bulshada iyadoo la filayo in la anbaqaado xalka gaadhideeda. ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa waxa ay gaadheen sida warbixinta lagu sheegay goobtii shalay kufsiga loogu geystay gabadha isla markaana laga soo tuuray, waxayna halkaasi ka bilaabeen baadhista dhacdadii halkaasi ka dhacday iyo sidoo kale ururimaha cadeymaha iyo gacan ku dhigista eedeysanayaal la sheegay in gacanta xilligan lagu hayo oo gaadhaya 4. ugu dambeyntii afayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa waxa ummadda Soomaaliyeed u tilmaamay inay xilligan socoto baadhistu dhawaana natiijada lala wadaagi doono qof kastoo arrintan ay ku cadaatana la hor keeni doono cadaaladda sida uu hadalka u dhigay. ugu dambeyntii Allah u naxariistay quburaha Bangeele ee degmada Daynile ee gobolka Banaadir ayaa lagu aasay Xamdi Maxamed Faarax, waxaana tiiraanyo iyo murugo badan xilligan la kulmayo qoyska ay ka dhalatay. waad ku mahadsantahay daawada waxaan kulan ku dhiirigelinayaa fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo taabo calaamada subscribe.